madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam ayaa maanta shir gudoomiyay shirka golaha wasiirada Jubbaland waxaana warbixino kala duwan looga dhageystay qaar kamid ah wasaaradaha Jubbaland sida wasaaradda caafimaadka, wasaaradda howlaha guud iyo guriyeynta. wasaaradda amniga ayaa sidoo kale warbixin looga dhageystay kulankaas. madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam oo bishan safar shaqo ku tagay deegaano kala duwan oo ka tirsan Jubbaland ayaa golaha wasiirada uga warbixiyay safarkii inta uu ku maqnaa waxyaabihii uu la soo kulmay iyo waxyaabaha ay soo arkeenba. sidoo kale madaxweynuhu waxa uu golaha wasiirada warbixin ka siiyay safarkii Garowe oo ay ku kulmeen madaxda dawladda dhexe iyo waliba madaxda maamul goboleedyada. sidoo kale waxa uu warbixin ka siiyay kulanka lagu ballansan yahay bisha Maaj oo lagu wado inuu ka dhaco magaalada Garowe. Cusmaan Cabdullaahi Maxamed Ismaalure, Ras Media, Muqdisho.